Islaamka siduu u sharfay gabadha. Islaamku wuxuu cadeeyay inay gabadhu tahay wiilka oo kale dhinaca bini'aadanimada, laakiin aysan ahayn sidii sheegayaan nimanka gaalada ahaa ee quruntii dhexe, kuwaasoo oran jiray gabadhu ma bini'aadan baa mise waa xayawaan. Islaamku wuxuu ka difaacay gabadha oo uu beeniyay lacnadii ay lacnadi jireen iyaga oo sheegaya inay gabadhu tahay tii aabaheen Aadam jannada ka soo saartay, isagoo cadeeyay inaysan hooyadeena Xaawo kaligeeda aysan samaynin dembiga, laakiin labadooduba ay galeen dembigaasi, wuxuuna arrintaa Alle ku cadeeyay Qur'aanka. Sidoo kale wuxuu Qur'aanka cadeeyay in natiijadii ugu dambeysay ee dembiga uu Alle subxaanahu wa tacaala dusha ka saaray aabaheena Aadam. Islaamku wuxuu cadeeyay inay gabadhu tahay mid u suubata inay cibaadaysato, ninkana ay kala mid tahay caabuditaanka Alle subxaanahu wa tacaala, kana rabo gabadha waxa uu ka rabo ragga ee cibaado ah, laakiinse aysan ahayn siday dhaheen Nasaaradu inay gabadhu tahay shaydaan aan u dhowaan karin diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala, kitaabkana akhrin karin. Arrinkanna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala ku cadeeyay aayado badan oo Qur'aanka ku jira. Islaamku wuxuu la dagaalamay in la baasaysto gabadha oo la dhaho faqri ayay soo wadaa ama laga naxo markay dhalato. Islaamku wuxuu xarimay in gabadha la dilo, sidoo kale Islaamku wuxuu xarimay in gabadha lagu aaso nolosha amaba loo arko inay tahay ceeb. Qur'aanka ayaa arrintaasi si weyn uga hadlay. Islaamku wuxuu amray in la wanaajiyo gabadha oo lagu ikraamo gabarnimadeeda, oorinimadeeda iyo hooyanimadeeda. Islaamku wuxuu cadeeyay xuquuqda ay ku leedahay gabadha ninkeeda iyo midda la midka ah ee ninkeeda uu ku leeyahay, oo labaduba la amray dhowrideeda, saldhigna loogu dhigay is-ixtiraam lamaanaha ah. Islaamku wuxuu cadeeyay ninka inta fursadood ee uu haysto furitaanka iyo inaysan jirin wixii jaahiliga ee ninka intuu doono ku dhaaran jiray haddana uu gabadha iska haysan jiray. Fursadaha furiinka waxaa laga dhigay 3 dalqadood oo kaliya. Sidoo kale taa beddelkeeda wuxuu siiyay gabadha waxa loo yaqaano khulc, oo ah inay gabadha iska furi karto ninka ku xumaada iyadoo ku iibsanaysa dalqadaha waddo sharciyanna u sii maraysa. Islaamku wuxuu xadiday inta xaas ee uu ninka guursan karo. Ninka waxaa loo baneeyay ugu badnaan 4 dumar inuu kulmiyo, wuxuuna Islaamka halkaas daaqada kaga saaray wixii ay samayn jireen raggii jaahiliga oo uu ogolaa ninka inuu guursado intuu karo oon tiro lahayn. Islaamku shardi adag ayuu ku xiray xaasaska badan guursigooda. Wuxuu ninka amray in gabadha koowaad marka hore u dhammaystiro xuquuqdeeda, kadibna cadaalad iyo sinaan kula dhaqmo xaasaskiisa, isku midna u wada jeclaada dhan kastaba. Islaamku wuxuu gabadha siiyay xuquuqda dhaxalka, ha ahaato marwo ama gabar ama oori ama mid ku jirta caloosha hooyadeeda, halkay jaahiliga gabadh ahayd mid aan waxba dhaxli karin oon xuquuq lahayn. Islaamku wuxuu cadeeyay inay gabadha u suubato ku tagrifalka hantideeda markay qaangaarto. Waxaa gabadha loo ogol yahay inay xoolo lahaan karto, ganacsan karto, waxay doonto diidi karto, waxay doontana yeeli karto, dacwadeedana ay u bandhigan karto qaadiga, qof kalena wax u dhiiban karto. Islaamku wuxuu gabadha ka xoreeyay dhammaan dulmigii iyo xushnimadii jaahiliyiintii ee aan qaybta hore muuqaalkan kula soo wadaagay. waa walaalkiina Daxkiin Axmed. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.